مسؤولين كلا socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo kaga qayb galay shir looga hadlayo horumarinta jidadka gaar ahaan wadooyinka Kabalistoonka ee ay hirgelisay hay'adda shaqaalaha adduunka ILO. Shirka ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo kordhin lahaa mashaariicda dhismayaasha wadooyinka Kabalistoonka ee laga fuliyay xaafadaha magaalada Baydhabo iyadoona si gaar ah loo falanqeeyay faa'iidada laga helay wajigii koowaad ee mashaariicda iyo sida uu taabtay bulshada nugul. shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, maamulka degmada Baydhabo, madaxa ka socotay dawladda Jarmalka, iyadoona mas'uuliin kale ay uga qayb galeen qaab fogaan arag ah. ugu horeyn wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan uu leeyahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fursadaha shaqo ee bulshada. shirku ujeedadiisu way ka saabsanaayay maadaama feeski koowad oo jidad la dhisay Baydhabo dhamaadi ini oo evaluation la kusoobi evaluation teamkuna wali hayeen evaluation oo ka madax banaaw maxaa la yiraahdaa ayalo ka madax banaaw oo ka madax banaaw madaxda wasaaradda ka madax banaaw ama ka madax banaaw madaxda qaybaha qusayti marka siyo hanfiiriyaan ama hanqiimayaan mashaariicdii jidadka oo la fuliyay Kabalistoonka degmada Baydhabo la ku fuliyay oo feeskoosho dhamaadi waxyaalihii ka qaldami waxyaalihii horumar la ka deeri faa'iidooyinka u soo saasoo kale madaxda community-ga oo badana orooto jidadka la ka fuliyay community-ga oo IDPs-ka oo madaxda orooto la ka fuliyay qaabka madaxda ka faa'iideysadeen saasoo kale dhalinyarada qaabka ka faa'iideystay dhalinyarada haweenka saasoo kale yoonay madaxda dadka oo baahiyaha gaarka qabaan qaabka aan fuliyeen marka maxaa la yiraahdaa madaxda su'aalo badan dadka ka weydiin maadaama ay weydiin waliyo markuu ka faa'iideen arageen wali la gaabi iyo wali la ka faa'iidiyay deegaanka bandhigayeen taasoo madaxda su'aalana ka jeediyeen wasiirada iyo inay madaxda recommendation dhiibadeen sidoo aan aragaan marka sidan la socotaan Baydhabo mana phase 1 kamay dhamaaday tumishan jid yala dhamaay kilometer ahaan hadii la sheego way 25 kilometer jidad diiraan dhamaadeen. ugu dambeyn shirka waxaa si wada jir ah u soo xiray Marwo Aamino Xuseen Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyo Maxamed Xuseen Garaaxo, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta dawladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo adkeeyay muhiimadda iskaashiga dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah ee horumarinta jidadka iyo ka faa'iideysiga bulshada si loo abuuro fursado shaqo isla markaasina loo dhiso wadooyin aad u tiro badan oo bulshada ay ku faanaan. waxaan u mahad celinayaa ILO iyo KFW baan aad iyo aad ugu mahad celinayaa iyo maamulka sharafta leh oo Koonfur Galbeed oo hogaansho madaxweyne lafta gareen oo noo saamaxay nabadgelyadan iyo sidaan iyo maamulka quruxda badan in aan meeshaan maanta ku nimaano. sadar muqdaal waa su'aal ka dhan runtii shaqada ay qabteen IOL waa banaanka taala wax la hakranayna maaha runtii waa idinku mahad celinayaa idinka iyo maalgeliyaasha oo Jarmalka dhamaantiina waa idin mahad celinayaa waxaan leeyahay shaqada intaan inay ku ekeen ay hor u socoto wajiga kale oo bilaaban doono ugu yaraan gabdhaha in loogu soo daro. Siraaj Sheikh warbaahinta qaranka Baydhabo.